السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا هبين عصب إيه wellness with إكرام. إلهي قرآن كيسا وحو كيري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. marka aayadaas maanta waxaan usoo qaadanay because mawduuceena wuxuu ku saabeysan yahay markii ay musiibo nagu dhacdo ama dhibaato nagu dhacdo ama marka ingiriis u fasireen marka grief qofka ay marayso. Grief waxa waaye dareenka ay qofka dareemayso markii oo qof ay jeceshahay ama wax ay jeceshahay laga qaato sida geerida oo kale. So geerida always waxa waaye qofka ma filanayso ama waa filanayna horta mafruud maalin kasta inaa xasuusnaano because geeri iyo nolol way garab yaaliin la yiraahdaa. laakiin markii qof aan jecelnahay ee naga dhimato waxa qof kasta waxay maraysaa dareen oo xusni iyo sadness iyo dareenmayaal kala duwan ee qofka ee dareemi karta. geerida kaligeed ma aha waxaa jirto mar oo qofka ay dareenkaas dareemayso isagoo laga dhimanin waxaa dhici karta masalan qof oo fiicneed oo cudur kusoo booday cancer camala laga helay waxay filanaysay ma aha cancerkii grief of like over the health qofka caafimaadkii ay qabtay xusni u dareemaysaa ama dareen oo xusni ama ay dareemaysaa murug badan ay dareemaysaa because shalay way caafimaad qabtay and maanta iyadoo iska socota ay taqtar tagtay waxaa lasoo dhahay masalan cancer qabtaa. waxaa kaloo jirto masalan qof oo masalan naag oo ninka ka tagay ama nin oo naag gabadhii uu jeclay ka guursatay nin kale waxay maraysaa period of grief ee qofkaasi dareemi kartaa. So marka waxaa dhici karta hadda masalan haddii aan tusaale oo badankeena aan naqaano Soomaaliya camal markaan soo wada qaxnay dad waxaa jireen maalyaqab ahaayeen camal oo markii dagaalkii uu dhacay maalkooda iyo guryahooda iyo hantidii wixii dhan kasoo wada carareen Mareykanka imaadeen aan waxaa la dhahay masalan janitorialka shaqeeya nadaafad camal shaqo ahaa la siiyey. So qofkii waxay noqonaysaa anigoo hebel ahaay anoo meeshaasi xukumayay waxaa maanta la dhiibay iskoobo dhul xaq lay dhahay camal. So that's grief qofka maray waxay maraysaa murug iyo xumaan iyo يعني وكجو إيوانيسا قف كماشي إيه تاجند إيه ما أنت ماشي إيه تاجنته. so تاسا grief لدها مركب لما شو إنه كرتا وحين كرتا فرين قفل فراي عمل قف أو مثلا عافيمات كجريف لو نقرأ أم برستيج أما social status دان هني قف أو ميل صار جارسيس نيت أما شقد اللوز جريس عمل أو dhibaatooyin badan kala kulantay. griefka ama murugta seeto waxay leedahay 5 stage ee qofka mari karto. 5 qayb ee kala baxsan tahay waxa waaye midda koowaad waxa la dhahaa denial waxa waaye inkiraad qofka markii oo loo soo sheego koodi waxa dhacay ama oo hebel naago guursada camal hadii la dhaho iyadoo gudaheeda og aaminsan inay dhici karto ama ay dhacdo sheekadaas ee inkireysa ay dhaheen no ma dhicin maba dhici karto soo dhici karta you know maskaxdeedii qofka weyntahay. So koodi responsive ugu horeeya ee qofka maraysa waxa waaye inkiraad ma dhicin denial complete denial. Then waxaa dhici stage-ka labaad ee galaysaa oo waxa la dhaho anger xanaaq sidee waxaan u dhacayaan see u dhici karaan waxaaneeto see la ii yeeli kala ani dhibaatada see la ii gaarsii karaa camal you know. then kadib waxay mari kartaa wax oo bargaining la dhaho ama gorgortan la dhaho. waxsalan dad badan ama waa aragteen ama waa arki doontiin wax qof oo dhahayso ala ilaahayow sasada ii yeeshid saanaan yeelaa ama ilaahayow wax xijaabana haddii oo hebel ii soo noqdo waxsaas camal yani qofka gorgortan ay bilaabaysaa inay la gorgortanto ilaahay ee dhahdo yani haddaasan ii yeeshid saanaan yeelaa camal. and then kadib waxaa stage oo depression la dhahaa jiro weer qofka ee marka gaaraysa heer oo waxa waaye marka waxuma qaba kari tacbaana ahay 2 week daciifan ahay dhibaato yani markaan way aaminsan tahay wixii dhacay marka griefka waxa waaye qofka inay like sariir ee korto marka ana period of ooyin iyo
dhibaatadii markaas wejigeed laga kaso koodii markii denialka inkiraada ahayd qofka wejigeed ma laga kaseenin inay dhaawac uu gaaray angerka is different like markii like depressionka uu gaaro marka qofka stagekaas uu gaaro wejigeeda waa laga kasaa xusniga oo koraa wejigii ooyin ilmaa ka daadanayo cuntada inay ka go'do just calaamadaha oo depressionka hore uga hadalnay so just calaamadahaas taa laga helaa and then stageka ugu dambeeya waxa waaye acceptance marka ogolaansho ay gaaraysaa marka waxa waaye okay marka wixii dhacay hadda wuu dhacay okay with it you know qadar allah ma shaa facal maxaan ka qaban karaa marka acceptance ay qofka markay gaarto marka ku fikiri kartaa si oo maskaxdeeda si clear ah u fikiri kartaa waxay yani maxaan qaban karaa hadeertaaneeto ay gaaraysa so saas waxay ahayd shanta stage oo qofka murugta oo losska markii qof aa lose garaysid aa jeceshahay ama wax aa jeceshahay aa lose garaysid calaamado oo lagu garan karo qofka inay grief ka tabanaysa ama murugtaasayto ay ka tabanaysa waxa waaye masalan sida shock and disbelief camal qofka inay shock qaado ee aamini weysa say wax u dhaceen waxaa dhici karta sadnesska sida xusniga angerka fearka waxa waaye markii oo qofka cabsi iyo walwal waxaa like qadii oo masalan naagta ninkeeda oo ka dhinta camal ma fi inay walwal oo financially inay gasho masalan okay oo guriga biilaayo you know ijaarkiya bixinaayo waxyaabahaasayto soo cabsidaaseeto waxaa cabsi badan kusoo kordhaysa marka badanaa haddii masalan dhimasho ay tahay ama waalidkaaga ama wiilkaaga wax qof kastaa dhiman karta some people waxay ka fikiraan ama ay ka cabsadaan markaas dhimashaday soo xasuusanayaan mar maba xasuusana dhimashada ilaa qof noo dhow ay ka dhimato ama markaas kadib hadana anaka dhimashada am I gonna be next camal anima kusoo waxay qofkaneeto who's gonna be next kaliya kaloo lose garay rabaa mar dhow yaa kaloo iga dhimanayo so that's another fearka waaye and then physical symptoms dadka badanaa waxay u maleeyaan markii oo grief laga hadlaaya ama qof markii oo murugta oo qofka la lose gareeya ama qofka dhimatay laga hadlaayo just dareen ma aha mar calaamado oo physical aha laga arkaa qofka like in miisaankeeda uu dego ama miisaankeeda uu kordho ama hurdada ay ka tagto ama inay daal ka muuqato so calaamadahaasna calaamadaha la fiiriyo waa maxaa laga qaban karaa waxaa laga qaban karaa horta anaka dad muslimaan nahay alxamdulilah an diinteena runta haddii la sheego qisaska nebiyaalka haddii aa akhrisatid ama aa maqashe grief badanaa ku jiro like just a simple example haddaa soo qaadatid sayidna muuse calayhi salaam hooyadiisa markii oo fircoon wiilasha dhameynaye cunugee dhashe cunugaagii aa dhashe waxaa oo ilaahay markuu dhahaayo you know ارميه في اليم ولا تخافي ولا تحزني يعني واذا خفت عليه ارميه في اليم ولا تخافي ولا تحزني الله so هدي او عبستي كود نوجي الله عنقاga because of course نوجinta oo hooyaday cunug ka dhaxayso waxa waaye connection ka bond نوجي الله you know ارضعيه واذا خفت عليه هدا وعبستنه فرميه في اليم ولا تخافي ولا تحزني بيها كرد هكا عبسانين هنا احمان هاس على الحمانين الله انا كاكو سعودي دون سو الهي واي تاسيت سو سي مريم لغا موسى هو يديس عليه السلام حزن غريف هلاس كبدن مو adkeysan karto hooyo oo adkeysan karto malaha okay waxa kale jirto sheekada oo sayidna ciise calayhi salaam markii maryam al-azra uriyelata iyadoo nin taabanin you know can you imagine ana ka hada casrigan aad joogno markii oo gabar hadee uriyelato iyadoo oo la guursanin camal that musiba waaye yani wax weyn waaye subhanallah so that's grief when ugu dhinna taasa ugu dhiman yani taasa ugu dambaysa grief maryam al-azra uriyelata ciise warkiisii qaade iyadoo gabar oo la taabanin you know so but way sabarta alxamdulillah in allaha maca saabiriin allah so in alla sabra is very important markii dhinaca diinta loo fiiriyo of course that's just a simple example laba example le why there is more and more yani qisad waxaa jirta sayidna yacquub markii يوسف وحلو جرودي عيلك أو لا ليش جرودين وسو أنا إندي عدادين أو إندولا نقطة so anyway قصص كان نبيك من آخر كرني با درس الله مور هدا آخر ستة grief ودرامي كرتا قفك ودرامي كرتا مركب إبعتو كود عضو سو نبضن تهاي إيو حنونك إليه هاي so marka waxa
diinta marka inaan ku adkeysano oo ku taagsano aan soo xasuusano nebiyaalkii dhibaatada ay mareen is very important aan kuwaana qaadana too because subxaanallah haddii maryam alcazraa ee dhibaatadaas martay ee u adkeysatay oo muuse hooyadiis dhibaatadaas martay oo nebi yacquub maray who are we anaga waxna soo gaarayo horta it's very very simple yani wax simple ah waayo compared to dhibaatooyinka ay ka gaareen mida kale ilaahay qur-aankiis wuxuu ku yiri عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم سو هجعلاننا أو شر إذين دعي كرتو مركو إلهي مركا نغا قاضايو خوفا جعلنا هاي أما أو وحن جعلنا نغا قاضايو أكيد قيرا نوغو جرو يعني إلهي وحكشت إساقا أوك إلهي وحي كل الأمور ودنا إلهي كي إمادو الحمد لله إنا لها نوايا إن شاء الله مدكو بعد مركز لدهاي محنك قاضان كرا قريف كي دبات دانيتا إحاسطو يعني إلهي دينتين إنها لغو أتكيست is very important مركز كدب وحا important إنها support راتستد بني آدم كوحواي صومالي وحيد هذا فرق لقيت فول مرأخذه مركا أذي دباتي سنتهاي كلجا بديه كرت دبعتها أنا كبحة أي كلجي it's important إن يعني دتك كتير ستيت فمل كاجا صاحب هذا إيه الوحالة هذا هاي أو حتى it's good to talk إن كهدش الدرين كاجا I know sometimes أنا كسمع هذا أنا هو نقول أذكت هاي إن درين كهذا especially يعني دتك generation كي هو ما بدي خاني وحسيته إن قفل في الإستيت هو هذا عمل in some people some هو حاجران ما شاء الله أد وناكس إنه درينك علمه هذا قيمة لكن وحاجرت some parents أو درين أقول ننسى اللغة هذلا or they just not comfortable إذا كهذلان so هذا والد كان نوع عاسي هاي I'm sure صاحب هذا أساس معها because دتك أنت كورين هذا more like they very emotional oriented so emotion كأدي وقيمة يعني سو بحضرين صنتهاي and you know it's okay إن أوسد أو it's okay إن أدرين تدو حضرين صنتهاي أنا كلايف كنلاش محكني ما كنترول كرني وح كنترول كرنا emotion كينا so we have حق أولين هاي إنها حزن درينا إنها هبي درينا إنها whatever feeling أو ما أنت أدرين موسد it's your right إنها درين and you need to be okay with it and that كنا عيدا جوجا need to be okay with it so the first one أو كمان كرتي وحواي dadka haska goonin hadhihin ani kaligayga ka baxay dhibaatadaaneyto support raadso friends family hadee waasid professional help raadso you know wadana waxaa joogtaa people get paid to listen to you so go ahead utilize that right you know go ahead qof raadso oo ku dhageysanayso and how you feel and qof awood inay ku validate garayso ku dhahdo it's okay to feel that way it's normal inaad feel garay that way so that's the first thing as a maker mida kaleetane of course take care of yourself naftaada take care garay waxa waaye ina ismoyda healthiga take care garay try ina hurudid oo ha isku daynin depression ka try ina dadka ku xiratid oo xiriir yeelatid try ina face your feelings ina dareenkaaga muujisid adana la deal garaysid yani sometimes what I tell people ani dadka waxaan dhahaa haddiiba jirin qof aa kala hadli kartid yani taasaa dareensan tahay write it warqadii qalin qaad qor waxaad dareensan tahay you know xaqa u leedahay it's okay to be angry or upset or you know whatever resentful write it down qor waxaad dareensan tahay it could be hadalkii wuxuu noqon karaa qorinkaasa hadalkaaga noqon kara qofka kuu noqon karaa and I've tried it myself inaa qoro wax and a lot of times I felt like inaa fududaade because xataa markay xanaaqsanahay waxaa jiro dadka aan ku xanaaqsanahay waxyaaba aan dhihi karin whether it's you know just out of ixtiraam masalan qof aan respect garayhayno haddayna hirti garayso aan u jawaabi karin camal and sometimes it's yani haddee joogin qof aa kala hadashid waqtigaasayto warqadii qalin qaado qor how you feeling you know what makes you upset maxaa kaa xanaajiye qofka maxay dhahdee what will you have said maxaa dhihi lahayd you know haddaa awoodid inaa qofkaas hadashid so anyway writing is very very important it doesn't matter what language aa ku qortay just qor about your feeling so griefka caaw ka hadalna insha allah warkii u kooban waxa waaye grief 5 stage soo leeyahan dhahna denial waxaan ka hadalnay
waxaan ka hadalnay denial, waxaan ka hadalnay anger, bargaining, depression and acceptance. Acceptance is the last stage. qofka hadday acceptance gaarto then clear head waaye and they can move forward to what they want to do. And inshallah waa kaasaa wellness with Ikram caawo khamiise waa inoo khamiista dambe. Don't forget to like, subscribe and share. Wa inshallah we'll see you next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.